dowladda Iran waxay sheegtay in Mareykanka waxa kaliya ay u babaxsanaya ay tahay inuu bartilmaameedsado ama uu duqeeyo xarumaha nuclear-ka ee dowladda Iran. waxaana dowladdu ay sheegtay in wax kasta uu sameeyo Mareykanka uusan gaari kareynin goobaha muhiimka u ah dowladda Iran. dhinaca kalena ay mar horeba waxyaabihii muhiimka u ahaa ay geeyeen gooba ay muhiim tahay in badqabkooda ama amnigooda ay ka warhayaan. sidoo kale dowladda Iran waxay sheegtay in maalmihii ugu dambeeyay ka hortageen qorshe la doonayay in lagu dilo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Iran Abbas Araghchi. qorshahaas oo ay sheegeen sirdoonka Israa'iil inuu ka shaqeynayay waa arrin kale oo qatarteeda leh. ma ogtahay dowladda Iran inay udubdhaxaad u noqon karto dagaalweyne caalamka ka dhaca iyadoo ay ugu wacan tahay istiraatiijiyadda goobta ay ku taalo. tusaale ahaan haddii dagaalka uu ka bilowdo ubuucda qaliijka, dowladda Iran door weyn ayay ciyaari kartaa. aan kula wadaago juqraafi ahaan Iran iyo halka ay ku taalo. Iran waxay xuduud la wadaagtaa dalalka qaar ka mid ah gobolka Qowqaas la yiraahdo sida Armenia iyo Azerbaijan. waxay xuduud ay la wadaagtaa dalalka Russia iyo sidoo kale Pakistan oo ah dowlado ku hubeysan hubka nuclear-ka. waxay xuduud la wadaagtaa dalalka Afghanistan, Suuriya iyo sidoo kale Turkiga. waxay dhacdaa gacanka qaliijka, kan Faris iyo sidoo kale badweynta Hindiya. sidaas daraadeed halka ay ku taal iyadoo loo eegayo waxay noqon kartaa ubuucda ama goobta go'aamin doonta sida uu noqon karayo qaab istiraatiijiyadeedka dagaal suuragal ay tahay inuu gobolka ama caalamka uu ka dhaco. waxaana hadda lagu loolamayaa cidda gacanta ku dhigi karta Iran. saaxiibadeeda Ruushka iyo Shiinaha miyay cidlayn doonaan dowladda Iran oo waxay eegan doonaan danahooda istiraatiijiyadeed ee kala dhexeeya dowladda, mise haddii xaalka faraha uu ka baxo sida hadaladooda ku dheehan si xoogan ayay u garab istaagi doonaan. maadaama dowladda Iran ay sheegtay marka Mareykanka gantaaladiisa inaysan gaari karin xarumaha ugu muhiimsan ee nuclear-ka, waa maxay tallaabada xigta ama Mareykanka waxa uu qaadi karo ama u baahan karo si uu xarumahaasi u gaaro haddii la raaco warka dowladda Iran? waxay u baahan karayaan hubka loo yaqaano nuclear-ka tacticada. marka la joogo dhanka hubka nuclear-ka laba nooc ayuu u kala baxaa, kan tacticada iyo kan weyn. kan tacticadana waa midka loogu talagalay in lagu burburiyo xarumo kooban, saldhigyada militariga, guutooyinka ciidanka ee aadka u badan ee la doonayo mar qura in la baabi'iyo. marka la eego xajmi ahaana wuu ka yaryahay hubka rasmiga ah ee nuclear-ka. waxaase la isweydiinayaa xogaha sirdoon ee soo baxaya waxay sheegayaan in madaxweyne Trump uu mar horeba meel mariyay ama uu ansixiyay qorshe kasta oo dagaalka ugu soo biirayo. laakiin maxay tahay sababta uu go'aan kama dambaysa u qaadan la'yahay madaxweynaha dowladda Mareykanka? ilaha sirdoon iyo macluumaadyada aan helin waxay sheegayaan in Mareykanka mar walba ay ka go'an tahay ka qayb qaadashada duulaan rasmi ah oo ka dhana dowladda Iran iyadoo arrimo badan laga eegayo. laakiin waxaa jira caqabado dhowr ah. ka qayb qaadashada madaxweyne Trump uu aqbalay ama uu ansixiyana waa inaanan Israa'iil la cidlaynin, wax kasta ay u baahan tahayna la siiyo. maanta wasiirada arrimaha dibadda ee Jarmalka, Faransiiska iyo Ingiriiska waxay kulan ku yeelanayaan magaalada Geneva. ujeedadu waxa ay tahay in lala kulmo Abbas Araghchi, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Iran. laakiin kulan kale ayaa ka horeyn doona, kadib ayaa lala kulmi doonaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Iran. dowladahan waxay wadaan qorsho ama dadaal ay doonayaan in gebi ahaanba Ruushka iyo Shiinaha saameyntooda dagaalkan ay banaanka ay dhigaan iyagoo arrimo badan u sababeynaya. waana sababta ay u doonayaan inay iyaga noqdaan kuwa libinta qaata, wada hadalkana ka soo shaqeeya. waa maxay ujeedada kulanka? ujeedada kulanka waa in lagu qanciyo dowladda Iran inay si rasmi ah u ballan qaado in barnaamijkeeda nuclear-ka uu noqonayo ujeedkiisa ugu dambeeya inay u adeegsato dhinaca nabadda iyo arrimaha bulshada oo aan loogu talagelin ujeedo dhanka militariga ah. waa waxyaabaha ay doonayaan inay Iiraaniyiinta ku qanciyaan. kulankan sidoo kale waxaa qayb ka ah dadaalada ay wadamada qaaradda Yurub ay ku doonayaan in lagu xasiliyo barnaamijka ama xiisada dhanka nuclear-ka ee aadka u korodhay sanadihii ugu dambeeyay, isla markaana ay ka hortagaan dagaal ballaaran oo ka dhex qarxa Iran iyo dowladaha reer galbeedka. dowladahan waxay qayb ka ahaayeen kuwii heshiiska la galay dowladda Iran 2015 inkastoo 2018 gabi ahaanba uu ka baxay Mareykanka, gaar ahaan madaxweyne Trump. arrimahaasoo idil marka laga soo gudbo, waa maxay caqabadaha madaxweyne Trump horyaala oo keenay in muddo 2 toddobaad uu dalbado? maalin hore waa tii uu yiri kulanka wadamada gaashaanbuurta NATO waxaa ka soo bixi doona go'aan adag oo ka dhana dowladda Iran. go'aankiisa ma kulanka ayuu la sugayaa? waana maxay culeysaadka kale ee haysta madaxweyne Trump? aan ku soo koobno 4 ilaa 5 waliba ilaa 4 qodob. waxyaabaha la isweydiinayo oo madaxweyne Trump uu ka fikirayo waxay tahay maxaa ka dhalan karaya haddii weerar lagu qaado dowladda Iran iyadoo diyaaradaha bombardiska ee B2 la yiraahdo dowladda Mareykanka ay duqeymahaasi ay fulinayaan lana beegsan doona xarumaha nuclear-ka ee dowladda Iran. way sahlan tahay geedka sida loo fuulo, laakiin kasoo degidiisa ma ahan wax sahlan, waana waxa ay aqrinayaan.
sidoo kale madaxweyne Trump wuxuu doonayaa inuu akhriyo macluumaadka ay sirdoonka Mareykanka la wadaagayaan oo ah in Iran inta hadda jug gaartay aysan kasoo kabsan karin 5 sano ee soo socota, sidaa daraadeedna aan loo baahnayn faragelin military oo toosa oo Mareykanka uu qayb ka yahay. Waatan labaad madaxweyne Trump wuxuu ka fikirayaa weerarkan ma yahay mid muhiim ah mise wadooyin kale ayaa jira oo la mari karo. Waatan saddexaad wuxuu doonayaa in weerarkan uusan sabab u noqon in Mareykanka uu galo dagaal dheer oo bariga dhexe ka dhaca, kaas oo dhinacna ay ka doonayaan dowladaha qaar sida Ruushka, Mareykanka iyo kuwa kale ee gobolka, dhinaca kalena aysan ka doonaynin. Sababta ay u doonayaan dowladaha qaar waxay tahay inuu Mareykanka ku mashquuli doono dalka Iran iyo wadamada gobolka muddo 10 sano ku dhawaadna ay qaadan karto soo kabashada, dib u akhrinta iyo sixitaanka qaladaadka ka dhasha dagaalka Iran lala galo. taasina waxay fursad u noqonaysaa Mareykanka oo hubkiisii iyo istaraatiijiyadiisii iyo horumarkiisaba lagu mashquulin karayo dagaal ka dhaca dhanka bariga dhexe. waxayna fursad u tahay dowlado kale oo doonaya inta Mareykanka uu mashquulsan yahay ay iyaga faa'iideystaan. Arrinta ugu dambaysa ee Mareykanka uu ka fikirayana waxay tahay in weerarka si toos ah u burburin karo barnaamijka nuclearka ee dowladda Iran. oo waxaad moodaa hadallada ka soo baxay dowladda Iran ee ah inay mar horeba goobo muhiim ay geysteen hubkooda, sidoo kalena ay yiraahdeen xitaa bamka Mareykanka ee B-52 diyaaradda la ay qaadi karto maba gaari karaya xarumaheena. waa waxyaabaha keeni karaya shakiga aadka u badan, isla markaana loo baahan yahay in laga fakaro xitaa haddii aan dagaalka ku soo biirayo miyaan gaari karaya hadafka kama dambaysta ah. haddaba marka iyadoo sidaas ay tahay ayay dowladda Iran waxay saacadii ugu dambeeyay adeegsanaysaa hadallo kale oo jahwareerka sii kordhin kara, cabsidana kordhin kara. taliyii hore ee ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladda Iran Muhsin Rozai ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana uu shaaca uu ka qaaday in ra'iisul wasaare Netanyahu iyo ciidamada Israa'iil ay sugayso maalin kale oo madow. waxaan isticmaalnay buu yiri ilaa iminka 30% awoodeena, ma aanan isticmaalin buu yiri 4 awood oo aan leenahay oo haddii aan adeegsano dhinaca kale xaaladda u rogaya. waatan koowaad ma aanan isticmaalin buu yiri ciidankeena dhulka, waatan labaad ma aanan isticmaalin buu yiri awoodeena dhanka badda, waatan saddexaad ma aanan isticmaalin buu yiri awoodda aan dhinaca kale ugu rogi karno dhanka shidaalka anagoo xiri karna buu yiri marinka Hormuz, waana mid ka mid ah awoodaha aan haysano. waatan afaraad wuxuu yiri ma aanan isticmaalin mana kicin dhammaan saaxiibadeena gobolka ku sugan. dhammaan arrimahaasi oo idilna haddii aan mar un tallaabadaasi qaadno isbedel weyn ayaa dhici karaya, maalmo kale oo madow ayayna u noqonaysaa Israa'iil iyo ciidankeedaba. xitaa sidoo kale ma aanan isticmaalin buu yiri dowladaha kale ee annaga noo soo bandhigaya inay na caawiyaan. 5taas ayaan haysanaa buu yiri, marka hore 4 ayay waa 5. 5taasi oo awoodood ilaa iminka ma aanan isticmaalin. dowladaha ka dalbanaya inay iyaga ay caawiyaan talow yuu kala jeeda Maraashka iyo China, kuwaasoo dhowr jeer si cad u sheegay maalmihii ugu dambeeyay inay waxaan la aqbali karin tahay duqeynta dowladda Iran lagu hayo. wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay waxaan ka dalbanayaa dhammaan dadka Israa'iiliyiinta inta ay goor tahay inay isaga qaxaan goobaha aan anaga bartilmaamaysanayno. marka maxay kula tahay sababta ilaa iminka 4taasi awoodood aysan u isticmaalin dowladda Iran? waxaan doonayaa dhinaca kale inaan soo koobo aan kula wadaago gantaalka hypersoniga. gantaalka hypersoniga waxaa la sheegaa inay haystaan dowladaha Iran, Ruushka iyo sidoo kale Pakistan. aan ku raaciye miyaad ka warhaysaa in 3 jeer ilaa iminka la isticmaalay gantaaladani? Ruushka ayaa wuxuu isticmaalay dagaalka ilaa iminka oo kula jira dowladda Ukraine. Pakistan ayaa waxay u isticmaashay dagaalkii ugu dambeeyay Hindiya ay la gashay, iyo Iran oo hadda u isticmaashay Israa'iil. weliba habeenno hore waxay ahaayeen gantaaladii ugu cuslaa ee ku dhacay goobo muhiim oo ku yaala gudaha Israa'iil. dhinaca kalena Ingiriiska ayaa waxa uu u muuqanayaa mucaarad xooggan inuu la kulmayo, weliba dowladda ayaa la kulmaysa mucaaradka iyada oo ay dhanka mucaaradka ay ka digayaan isticmaalka saldhigga Mareykanka iyo Ingiriiska ay sida wadajirka u adeegsadaan ku yaala dhanka iyo badweynta Hindiya, kaasoo dhawaan la sheegay in la geeyay diyaaradaha dagaal nooca B-2 loo yaqaano oo Mareykanka uu leeyahay. Iran dhinaca kale waxay shaaci ka qaaday inay moodo ilaa iminka 3 dagaal oo aad u adag, soo ridida diyaaradaha droniska, soo qabashada iyo xiridda xubnaha la shaqeeya hay'adaha sirdoonka ee Israa'iil, iyo sidoo kale inay bartilmaamaysadaan xarumaha ugu muhiimsan ee Israa'iil, si gaar ahaaneed xarumaha cilmi baarista hubka nuclearka. bal maxay kula tahay adiga? qaybta hoos aragtidaada ku reeb, like saar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay. dowladda Denmark dhinaca kale waxay bilowday inay dhaqaajiso qaar ka mid ah doomaha la sheegay inay yihiin kuwa kaligood iskaxaynaya
ayna u dirtay biyaha ee badda Baltic iyadoo ujeedadu ay ku sheegtay inay tahay inay ka hortagaan in Ruushka uu waxyeello gaarsiiyo kaybalada ee dhulka hoostiisa ah iyo wax soo saarka muhiimka u ah ee dowladda Denmark ee dhanka badda. waxaana la rumaysan yahay inuu Ruushka arrimahaasi uu ku mashquulsan yahay. Badweynta Baltic haddii aan kula wadaago waxay martaa wadamada Denmark, Estonia, Finland, Jarmalka, Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Sweden iyo sidoo kale wadamada dhaca bartamaha qaaradda Yurub. ugu dambeyntii xoogagga iska caabinta ee Falastiiniyiinta ayaa waxay shaaci ka qaadeen inaysan iyagana ku mashquulin dagaalka soconaya ee 3 ka mid ah taangiyada Merkava ay shalay ku burburiyeen furmaha dagaalka. waxaa kaloo ay sheegeen inay soo rideen qaar ka mid ah diyaaradaha drone oo ciidamada Israa'iil ay adeegsanayaan. waxyaabaha soo kordha waan kula wadaagi doonaa insha Allah tacaala. falanqaynta dambena waxaan kula wadaagi doonaa 3 arrin ilaa 4 arrin oo ku dambeyn karaya dagaalka dhanka hawada ee iminka u dhaxeeya Israa'iil iyo sidoo kale Iiraan. aragtidaada qaybta hoose ku rabaad baad u mahadsan tahay. nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.